بسم الله bare hiilaale waxa weeye horta bare aadan shiraa la yidhaahdaa hiilaalahan waxaa iila baxay dadkaas maaragtay oo shabaadihii iyo waxaasaa la iigu baxay markii hore ma lahayn aniga waxaan ku dhashay dhuusamareeb baan ku dhashay iyadaan ku soo koray ilaa ceelgaab meel la yidhaahdo oo hadda shilaabo iyo intaas inta u dhaxaysa halkaasaan ku dhashay 70kii aniga oo yar baan xamar soo galay kabacdii waxaan ku biiray xoogga dalka Soomaaliyeed baan ku biiray ilaa dawladdii ay burburtay iyo 70kii ciidamadan ah darajada korneyl baan ka gaaray waxaana ka soo bilaabay alif dable baan ka soo bilaabay ilaa korneyl baan ka gaaray jagooyin baan soo qabtay jagooyinka waxaan soo qabtay urur guuto gaas baan soo qabtay qaybihii militarigu ka koobnaa baan ka soo shaqeeyey 60aad baan ka soo shaqeeyey 21aad baan ka soo shaqeeyey 22aad baan ka soo shaqeeyey shaqooyii iyo jagooyinka aan ka soo qabtayna sidaasay ahaayeen waxbarashadaydu aasigu waxay ahayd kulliyadda jaalasiyaad baan anugu ka baxay waxaa waxbarashooyin gaara u tegay oo adugu 1 sano iyo ah ciraaq anugu waxaan noqday ciidanka commandos baan ahaa ruush baan ciidanka tababarkiisa iyo macallimiin noogu ahaayo ruush baan ka soo baxnay ilaa commandos iyo baarashuudka ciidamada dalaayadaha ku boori yaan ku beerayo halkaas baa waxbarashanadu ah waxaan kaloo galay kulliyadda ciraaq baan galay sidoo kale ayadana tababarka commandos iyo tababarka baarashuudka baan ku soo qaatay waxaan galay kulliyadda quwat alkhaasa ee sacuudi carabiya sidoo kale waxaan ku soo qaatay tababarka commandoska iyo tababarka dalaayadaha waxaan ahaa macallin baarashuudka la xirxirto diyaaradaha looga duulo waxaan ahaa macallin commandos labadaasba shahaado macallimin baan ka haystay waxaan ka soo shaqeeyey dugsiyo baan ka soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa dugsigan hiilweyne aan tababare ka soo noqday dugsiga qorilow oo anugu waa laygu bilaabay oo nimankii Soomaali galbeed markii intaan ciidamadu duulin jabadihii lagu diyaariyey ninka loo geeyo 20 baan diyaarin 20,000 baan diyaarin meeshaa ku diyaarin anaa madax u ahaa macallimiintii baan madax u ahaa dugsiga commandosta oo balidogle baan ka soo shaqeeyey oo isagana aan joogay ribaarta ahaanna commandos baan ahaa aniga
CV-gaygu halkaasuu ka soo jeedaa lama soo koobi karo yaa lama soo koobi karo CV-ga waayahay wax la tiro koobi karo ma ahan dagaalkii 7 baan galay kuma dhaawacmin anigu laakiin waxaan ahaa nimankii kumandoosoo godoy iyo caradaas galay oo bilad qalina baan ku mutaystay oon lahaa marka CV-gaygu wakaa waaya korneyl Barre Aadan Shire burburkii dowladdii dhexe kadib halkeed ku noolayd adiga burburkii dowladdu markay burburtay anugu waxaan ka mid ahaa raggii baxay oo madaxweynihii la baxay oo gedo baan tagnay gedaan joogay intii ka dambeysay halkaasaan anugu joogay oon ka shaqaynayay odagu markuu baxay wixii ka dambeeyey anaa la wareegay xilkaas jabhadihii halkaasay iiga bilowdeen aniga halkaasay iiga bilowdeen dagaalkii waxaa odaga lagu saarayey waa caydiid ninka ka soo saaray caydiid baan ahay oo kula dagaalamay dhammaan degmooyinka oo gado oo dhan baan ka soo saaray markii dambana waxaan ciidan u dirnay meesha la yidhaahdo Kismaayo caydiid baa haystay ayadana Kismaayo markii aan ka soo saaray Beljimku markii joogeen baan ka soo saaray waxaan lagu dhexdhexaadiyey in ayaguna luglow degana annaguna aan degno Goobweyn labadaas madax heshiis isu muuqdaan waa dagaal dambana aan la samayn markaas Morgan baa ciidankaas madax u ahaa anugu waxaan joogay waan ka soo ambixiyey meesha la yidhaahdo Baardheer markaas Morgan adigu ku simaanay markaas Baardheer asaga oo waxay noo yimaadeen asaga iyo Gabyow iyo ayagoo gurmadoon ah ciidan doon ah bay noo yimaadeen ciidankaasaan annagu ku xoojinay marka macal saraakiishii ila shaqaynayso dhan baan ku daray aniga marka Baardheer baan joogay oo anigu aan wax ka hogaaminayay isagaa hawshaas waday hawshaas markuu ku waday isaga meeshii Travis baa dhacay isbeddel baa dhacay maraxaankii bay ka soo saareen magaalada markaasaa Goobweyn la keenay Goobweyn markay yimaadeen nimankii aan la diriraynay oo sacad weliba reer Jalaf caydiid raggiisii yaa maraxaankii wuxuu u noqday ayagaa badbaadiyey Goobweyn bay dejiyeen maraxaan horeyna difaac bay ka dhigeen markaasaan anugu Baardheer ka baxa yaa laga badbaadinaa markaas yaa wacid laga badbaadinaya markaas waxaa laga badbaadinayaa Morgan kii aan shalay anagu meesha geeyay meesha geysay isaga laga badbaadinaya dagaalka halkaasaan anagu marka anugu halkaasaan ka baxay Goobweyn baan ugu tegey Morgan Kismaayo haystaa maraxaankiiba la soo saaraan ku Kismaayo ani ma tegi karo Goobweyn baan ugu tegey maraxaankii iyo qolyihii kale oo habar gidir meesha isugu tegey dagaalkii markii caydiidii adiga idin dhaxeeyay baasha way waji kale u yeeshay weyn baasha leeyahay Goobweyn Goobweyn baa aniga iyo nimankii habar gidir oo intaad ogay isla soo maray Goobweyn baan ku heshiinay صاحبته Goobweyn baan ku saaxiib ilaahay amiin markaas xaggaasaan u jeesanay nimankii la oran jiray Kismaayo oo ninkii la dhihi jiray Morgan waa la naadiyey maraxaan baa la naadiyey
microphone gabadheed qofkii hayaa la yidhi yah waxa weeyaan ayagu la dembi baa la yidhi adigu goob weyn baan halkaasaan annagu hawshanadii ka wadnay dhowr bilood adigu waxaan joognay muddaan joognay halkaas ugu dambaystii Morgan halkaasaan ka saar magaaladii annagaa ka saar annagaa ka qabanay kaasaan uga bixin adiga ciidido garab ah annaga iyo habarkiiloo wada soconna caydiid waaba dhintay markaas wiilkiisaa jooga xamar markaas marka waxaa iskaashanahayay annaga iyo habargeed marka isku ciidan baan noqonnay isku waxaan noqonnay waa u midownay marka yaa kululaa dagaalkii ciidid aad la gashay iyo kii Morgan maxaa taariikho ka xasuusataa kii Morgan iyo kii ciidid aad la gashay iyo kan caydiid ha maxaa taariikho ka xasuusataa wallaahi laba dagaal waa dagaalo waaweyn aniga markaan taqriiban hadda noodkii ma hayo laakiin waxaan qiyaasahayaa dagaalkan caydiid wada gallay 100 waa gaarayay goobood oon ku gallay ama waddo ama tuulo ama degmo intaasoo dhan oo dagaala ama ilaa Baydhabo iyo Carada Morgan dagaalkiisa asagu dhowr jeer oo asaguna ahaa dagaal sidiisana waa isku mid dagaalku asagoo isku mid waaye hadba qoladii la jabiyaa baa guusha laga helayaa ma ogi waxa la isku ridayaa waa isku nooc waa isku qori marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ii sheegtay in dagaalkii adiga ciidid ka dhaxeeyay dhadhaxaadin ila sameeyay Morgan oo gurmad imaaday Morgan maxaa bedelay oo inuu ka soo horjeesta keen waxa keenay Morgan baa cadaalad darro sameeyay Morgan waxaan isku ogeyn Kismaayo inuuna dadka ku kala saarin mid ahadan Soomaalinimo ku shaqeeyo mid la aado oo dadka kala saarin Morgan qalad ku galay marka waxay ahayd oo ugu weynaa laba markab wuxuu ka soo qaaday qaxootiga oo harti keliya ah Kismaayo kaan Belgium baa joogay meesha ها واجي يونيتفتي bay ahayd moogti Belgiumkiyo joogay baan annagu ka qabsan Belgiumka markii Morganka aan wada soconay Belgiumkiyo joogaan Kismaayo ka qabanay caydiid markii la keenay oo magari ay yimaadeen bay waxa lagu bilaabay maraxankii waxa lagu bilaabay Belgium 2 Belgium 2 waaye ay iska baxeen meeshii ay ka yimaadeen aadeen sheekadaas la galay adigu sidii loo waday maraxankii gacanka hadal baaba lagu qaadayba niman aqoon-yahano ah oo dhakhaatiira baa laga laayay niman ciidankii ahaa baa laga laayay markaas ay soo baxeen waxay yimaadeen meesha la yiraahdo gooweyn halkaasaan ku kala leexanay annaga iyo Morgan cadaalad darro uu ka sameeyey Kismaayo baan isku weynay Kismaayo dagaalkeeda ma yareen kadib adaa la wareegtay midowga maxaakiimta dagaal kula gashay Xasan Turki iyo dad kale fara badan dagaalkaas muxuu ahaa isagan Xasan Turki markaan meesha Morgan ka qabanay Kismaayo ku qabanay Xasan Turki iyo Axmed Madoobe Kismaayo lafteedaan ku qabanay waxba looma dhimin dugsi faanoole la yidhaahdo baan laba baabuuro qoryo saaran yihiin oo staafkooda iyo ayaga baan dejiyey odayaal baan nahay meeshaan xabad dambe inay ka dhacdo ma rabnaa mana
nasiib daro gaadiid dagaaladii hore ay ku qabsadeen oo ay lahaayeen nimankan cayrka ah oo nala socda dhallinyarada yaa waxaa la soo galay odaygii muxuu ahaa ya maya odaygii kale oo meesha samtel ku haystay baabuurtii baa la isku qabsaday baabuurtii markii la isku qabsaday nimankii waan u tagnay waxaanu ihi baabuurtaan iska soo wareejiya waa diideen xasan turki baan u yeeray waxaan idhi xasanow nin culimo ahna waa tahay odayna waa tahay meeshaanna hadda intaas ka badan lama rabo dagaal qoraxey weye ninkan ka hadlaaya qoraxey iyo nimankan kala badbaadi oo baabuurta haddayna annaga nagu aaminayn adiga ha kuu dhiibeen ku wada hadallo haddii oo muxuu ahaa ay yeeshaan na ha la siiyo hadday yeelan waayaanna haddii adinkaaba maarag haa wuu u tegay xasan 15 oday buu kaxaystay oo jifadiisa ah ogaadeen ah buu kaxaystay oo siyaasiyiin u badan 2 saac oo subaxnimo iyo 11 galabnimo bay isla gaareen wada hadal wuu diiday wuxuu la gaaray xasan inuu yidhaahdo labadayada baabuur iyo labadaada qori waa isku nooc qoryuhuna waa isku nooc baabuurtuna waa isku nooc labadayada baabuur qaado ninka sidaas la aawo keenay ninka dhahaya waa xasan ninka la dhahaya waa ninka la yiraahdo qoraxay ha waa odaga qoraxay labadayada baabuur qaado ha aniga igu soo wareeji kuwaan haddaad qudooda haddaad hesho na baabuurtaada qaadan haddii kale labadayda qaado ha nab waa laga samray meesha ka bilaawday xabad markii galabtii way noo yimaadeen markaasuu wuxuu yidhi gacantu ka taag haba yaraatee wax meeshaan wax kale ka socda buu yidhi waa marka uu intaas noo sheegayo gaadiidkaygii baan siinayaa asaga gaadiidkaygaan kugu wareejinayaa adugu hayso iska qaadaba haddaa rabtid xamido markaas waxba ma hayo meel iska jooga xamido ciidankii asagu ka tirsan yahay ciidankiisu wiilashiisu asaga staafkiisu madax u yahay waay xamido baa staafka madax u yahay xasan turki xasan turki buu staaf u yahay xamido ilaahay amarkii aniga waxaan idhi bal ii kaadiye anigu aan arrinta gale waan u tegey markaan u tegey warkii baa baxaye waxaan arkay ciidan soo socda oo ayagii ku soo socda marka waxay yidhahdeen de barow ergana waad noogu socotaa ciidankiina waa kan waa u jeedaa markaasaan idhi isuga marka ciidankoodii difaaca ku jiraan ta dhex marayba anoo raba inaan kuwii kala celiyo bay qoladii aan dhaafay oo qoraxay iyo xabaddii soo furtay laba dhexda anagoo ku jirna aniga nin la yidhaahdo cirfo waa muxuu mataqaanaa cirfe ninkii afgooy ma xukumi jiray xuseen wehliye cirfo cirfe aadiya cirfihii afgooyahan iyo xukumay haysan jiray waan anagu nala socdaa markaas haye aniga cirfe baan nahay markaas xabaddii bay nagu bilaabeen labadii dhanba wixii waa isku fakar halkaasaan u cararray dhankii kale cadowga jira labadanadii dhinac baan u baxnay wax ciidan ma wadataan markaas qofna ma wadano labadanada bes baan dagaalkii halkaasuu ka bilowday dhibkii halkaasuu ka dhacay ninkii odaga ahaa meeshuu ku dhintay qoraxey meeshuu ku dhintay oo
gurigiibaa iyo wixii oo dhan baa meeshii dagaalkaasu ku dhintay marka waxaa loo dekanaynayey nin oo maraxaan ah oo wasiirka caafimaadka ahaan jiray dowladdii oo UN-ka u shaqaynayay oo baar dheere saldhigiisu ahaa oo kismaayo markaan qaban noo yimid oo attachment samaynayay markuu qoraaladii iyo baahidii iyo wixii qortay buu baar dheere ku noqday wuxuu rabay inuu nimankii la hadlo wixii daawo iyo wax soo qaado weli maxkamadaha ma dilaacin markaas weli maxkamada dagaalkooda ma jiro markaas ma dhawata maxkamad maxkamaddu xaggee joogta maxkamad ma jiraan marka ninkii wuxuu maray waddadii kabsuuma buu inta ka leexdayba wuxuu aaday waddadii ma garanaysaa mareere buu maray waa kuma kaas jirid qaasim baa la oran jiray doctor qaasim waa ninka caafimaadka markaas ninka caafimaadka ahaa waaya doctor qaasim baa la dhihi jiray wasiirka ku-xigeenkii beeruhu caafimaadku ahaan jiray ee dowladdii dhacday buu ahaa dagaalkii sidee lagu qaboojiyey marka meesha hargeysa yaray meel la yidhaahdo oo isbaaradooda ah ku soo istaag halkaasay ku dileen nimankii ogaadeen oo meeshaas joogay deganaa meeshaas iyagaa deganaaya moogta oo control kuwa dhalinyaro ah ay joogeen ninkii waa dileen ninkan odaga ah ninkaasay u dileen u dhintay dekanadiisa buu u dhintay calaa ayi xaal barnaamijkaasuu halkaasu ku afajarmay axmed madoobe odagii xasan turki ahaa subaxii dambe u ii yimid wuxuu yidhi macallin meeshan waa u jeedaa xaalkeedu ma fiicna aniga waxaan rabaa inaad amba bixiso oo waxaan degahayaa jasir raas kamboni baabuurtaan shidaal ugu shubay anaa amba bixiyey 30 kilomitr baan geeyey markaas kismaayo adaa ka talinaysa kismaayo anaa ka talinaya markaas yaa kugula sugan markaas anaa madax ninka Morgan ahay waa iska saar Morgan waa ka baxay waxaa laga qasaarayba waa asaga marka xasan turki halkaas goora marka dagaal kugu soo bilaabay xasan turki iyo jamaacadiis maadaama aad ma bixisay oo saaxiib ahaydeen turkiga xasan turki waxaa ka horeeyay Morgan baa 3 jeer isa soo abaabulay 3 jeer buu isa soo abaabulay oo kii Faroola ahaa wuxuu joogay Puntland Faroolaha iyo asaga iyo inta Puntland ciidamo laga soo kaxeeyay oo la keenay oo bahaaladii shibxaha badda xataa baabuur maya maraakiib baa la soo raray oo gaadiid la keenay oo marna waxaa lagu soo diyaariyey meesha la yidhaahdo Ethiopia oo baydhabo intay soo mareen bay na soo weerareen 2 jeer ayagoo wada socda macal raxanweynti yaana la soo weerar marka dagaal baa dhacay kismaayo way naga qabsadeen markay qabsadeen subaxii qabsadeen maya annagii ciidankanagii qaarna xamar xaggiisa u baxay jilib bay naga qabsadeen qaarna xamar buu u baxay qaarna wuxuu u baxay kismaayo waa kala baxday kuwii kismaayo oo anugu aan wato yaa waxaan isugu nimid kabsuuma ninkii la yidhaahdo Morgan iyo cabdi warsame iyo xaabsade iyo aadan madoobahan raggaas oo dhan oo wada socda maxay rabaan kismaayo u socda aniga qabsada intay daba mareen oo jamaama ka wareegeen bay kismaayo dalq yiraahdeen qabsadeen adigan xagee ku sugantaa markaas anigina waxaan joogaa markaas ciidankoodii baan inta jabinay waxaan joogaa jilib intay daba mareen bay meesha qabsadeen oo markii la dhahayo subaxdiina Morgan galabtiina barre waayahay anaga meeshaan isugu nimid waxanagii baan isku diyaarsanay galabtii baan
waxaan idhi yaan waxaan aadnay meesha la yidhaahdo mareere waxaan isleeyahay morgan mareere buu ku jiraa mo mareere markaan marayno raadii ahaan shidannay b b c da waxaaba b b c du leedahay morgan oo la wareegay kismaayo annaguna kolonyaan inta gallaan ka daba galnay habeenkii goob weyn baan u fariisanay subaxii waagu markuu baryeyna waa ka saaray marka kismaayo waa maxay wax loogu dhimanayo oo ku duugan intaas dagaal ugu dhacay wallaahi adeer waxa weeye waa iska talo xumo waa khilaaf waaye kismaayo meesha la yidhaahdo soomaali oo dhan baa degta ma garanaysaa qabiil soomaaliya oo aan jubbada hoose degin ma jiro marka nimankan hartida ah waxay ugu dagaalamayaan ayagu inay gacan ku haynta yeeshaan wax ku qabsada annaga ka horna may arag annagu markii aanu la dirirnay oo aan dagaalno annagii kala jabnay iyaga iyo annagu markii hore oo aan la dagaalamaynay caydiid waan wada jiray annagu soo ma ogid morganka iyo aniga iyo waxaas waa wada jiray annagii markaan kala jabnay annagiina aan ku qaybtii caydiid aan la soo gallay asaguna uu xagga muuqday meeshii baan ka bixinay marka asaga waa laga saaray wixii ka dambeeyey anaa joogay dhowr jeer bay weerar nagu soo qaadeen waana iska difaacan kii maxkamadihii ka waran asagan dhowr maraad dagaal kula gashay halkaas maxkamadihii